waxaa jiri jiray reer dhisan oo xaas iyo ninkeeda ka kooban. reerkan waxay haysteen hal wiil oo ninka xaaska ay u dhashay, waxayna ahaayeen kuwa jacayl markoodii hore isku guursaday. noloshoodana waxay ahayd mid farxad, kalsooni iyo jacayl ku dhisan. ruux kasta oo jacayl iyo farxad ku nool, laba isqabta ha noqdeen ama laba israbta, sidoodaba ma waayaan saddexeeyaha waxaa loo yaqaan cilmi boodhari ayaa waxa uu yidhi, haddii uu faqrigu qof ahaan lahaa waan dili lahaa. sidoo kale saddexeeyaha ayaa ahaan lahaa wax la dilo ee dembi ayaa ku jira. dad baa saddexeeyaha u yaqaana faqriga ama xooloyarida. inkastoo xooloyaridu ay tahay wax allah laga magangalo, haddana waxaa jira dad saddexeeye ah. dadka isjecel soo kala dhex gala, waxay doonaan ha ku soo kala dhex galaan. kuwaas ayaa ugu weyn cadowga jaceylka. ruuxa jaceylka uu ruuxa kale u qabo wuxuu dareemaa markuu cadowgaas u yimaado. haddaba reerkan oo farxaddooda wata ayaa maalin maalmaha ka mid a xaaskii waxay ninkeeda u soo jeedisay in uu adeegto uu u keeno, iyadoo ka cawatay in ay ku badan tahay howsha guriga. ninkii wuxuu u tegay shirkad dadka adeegto u keenta. kadib gabadh adeegto ah ayaa loo keenay. gabadhii kale ee xaaskiisa ahayd ayuu baray, wuxuuna ku yidhi, waatan gabadhii adeegtada ahayd ee aad iga dalbatay. shaqada guriga ayay kala tustay, wayna caawin jirtay inta ay guriga iyo howshiisa si wanaagsan ay u kala baranaysay. kadib gabadhii adeegtada ahayd waxay damacday wiilka reerka lahaa, waxayna ka heshay naxariistiisa iyo dadka sida uu u ixtiraamo. gabadhii adeegtada ahayd lafteedu waxay ahayd mid xoogaa iska quruxsan. adeegtadii waxay noqotay ruux damac galay, waxayna ku dadaashay fursad kasta oo ay wiilkaas ku soo jiidan karto in ay samayso. khilaafka iyo waxa ay xaaskiisa ka diiddo in ay la socoto si ay fursad kasta oo ay heli karto ay uga faa'iidaysato. jacayl waali ah ayay u qaaday. damac oo keliya kuma aysan ekaan. nasiib wanaag, labada ruux ee isqaba ma aysan fahmin jacaylka qaaliga ah oo ay gabadhan wiilka u qaaday. waxayba moodeen gabadh adeegto iska ahoo damaceedu uu ku eg yahay mushaarka ay qaadanayso iyo shaqadeeda yar. ilaan maba oga adeegtadu in ay reerka ku maqan tahay oo ninkaba iyo gurigaba ay doonayso inay qaadato. adeegtadii markii ay ninkii guriga lahaa ay rabto in ay la hadasho, hadalka wuu iska soo jarjaraa, isagoo danta uu markaas leeyahay oo keliya weydiisto. mararka qaar way isku soo bandhigtaa ayadoo isi soo qurxisa, isna soo carfisa. xaaskiisa ayuu u yeeraa isagoo ku odhanaya, saaxiibtaa maanta fasax miyay ahayd? shaqo ma qabta miya? markaas ayay gabadhii xaaska ahayd howl u yeeshaa. dhammaan dhaqdhaqaaqyadaas ay samaynayso ma ahayn mid dareen geliya labada isqaba, maxaa yeelay labadaba waa iskala qab weynaayeen. adeegto gabadha marna kuma aysan fikirin ninkeeda in uu adeegto hawoonayo. ninkana adeegto iska dhaafee ma uusan ahayn mid xitaa damacsan gabar kale. adeegtada qol gooni ah ayay ka deggan tahay xaafadda. markay qolkeeda gasho ayuu jaceylku ugu daran yahay. waxayna tidhaahdaa, habeenada qaar inta ayna seexan, naftani keligaa ku jecel, nasteexo irmaan ku soor, qalbiga caashaqa ku nuur, intaaq iyo howl ka daa. nasiib xumo, cid maqlaysa oo u jawaabaysa ma jirto. aniga waxaan u arkaa adeegtadani caqli xumo isugu tagtay. marka hore ayadu waa adeegto, nin ayna isku mastawo ahayn ayay jeclaatay. dad badan ayaa igu khilaafi kara middaas, dhib ma lahan. midda kale, nin xaas leh ayay jeclaatay oo ku nool guriga ay shaqaalo ka tahay. waxyaabahaasoo dhan waxaan u arkaa aqli darro, laakiin waxaan maqlay jaceylka indha ma lahan, meesha uu gelayana uma fiirsado. jaceylka markuu sidan oo kale uu kugu noqdo, wuxuu kugu qaadi karaa in aad ku dhaqaaqdo waxyaabo allah uusan raalli ka ahayn, adduun iyo aakhirana aad ku weyso. adeegtadii markii ay ka quusatay meel ay marto, waxay ku fikirtay
in ay u tagto nin sixiroole ah oo ay u sheegto damaceeda bal in uu caawin karo. sixiroole muxuu caawin karaa? isagaaba ah ruux dhunsan. ruuxii aaminana wuu sii lumiyaa. markay u tagtay waran buu ku yidhi, waxay u sheegtay muraadkeedii in ay ninka guriga ay adeegtada ka tahay iska leh ay jeceshahay, wax walbana ay u samaysay oo ay gacan ay ku dhigi la'dahay. sixiroolihii wuxuu iska dhigay nin aqoon iyo cilmi qaybka wax ka og. wuxuuna ku yidhi, ninka iyo xaaskiisa ilmo ma leeyihiin? markaasay tidhi, haa, ilmo yar ayay leeyihiin oo wiil ah. markaasuu yidhi sixiroolihii, wiilkaas yar ayaa leh awood oo isugu keeno labadiisa waalid. sababta aan loo dhexgeli karin waa kaas. wiilkaas adigoo meesha ka saarin ama aadan dilin, awood aad ninkan ku heshid ma helaysid. adeegtadii waa ay soo baxday ayadoo aad u rumaysatay sixiroolihii warkiisii. waxayna timid gurigii sidii ay wiilka yar ku dili lahayd ayay ku fikiraysay. hooyadii wiilka dhashay waa hooyo feejigan. inkastoo dhagarta adeegtada ayna war ka qabin, waa mid u taagan har iyo habeen ninkeeda iyo wiilkeeda yar, waxyaabaha ay u baahan yihiin iyo baahiyaha ay qabaan inay guddo. waxay adeegtadii fakartaaba mar walba maalintii ka dambaysa ayay jikada kala soo baxday mindi. ayadoo aan iska warhayn ayay wiilkii yaraa la soo aaday si ay ugu muddo. waa ruux uu allah fadeexeynayo, ceebteedana uu bannaanka keenayo. kadib waxaa ku soo yaacay ninkii iyo xaaskiisii oo la yaabay adeegtada iyo waxa ay samaynayso. naayaa bay yidhaahdeen. ayaa miirkii ugu horraysay u soo laabtay naagtii. maxaa samaynaysaa ayaa lagu yidhi. qosol ayay la dhacday. maya, waxba ma samaynayo ku tiri. waa la kaxeeyey saldhigga booliiska ayaana la geeyey. arrinteeda iyo wixii lagu arkayna booliiska ayaa loo sheegay. kadib booliiska waa ay xireen. waan baaraynaa ayay yidhaahdeen in ay tahay ruux fiyow iyo ruux waalan. sheekadiina intaa ayay inoogu dhammaatay. waana idinkaga mahad celinayaa sida wanaagsan ee aad ila socoteen. fadlan sheergaray si ay dadka looga faa'iidaystaan, isla markaasina leeg saar. mahadsanid.